xasaasi xaraaradda siyaasadda Soomaaliya mar kaliya ayuu kiiloomitirkeedu xagga sare ku booday nin walba itaalka ayuu lagdamayaa sikin ayaa loo kala kormaraya dad badan ayaa aanbaday kantaroolkii saadaalinta halka loo socdaana ka lumay su'aashuna waxay tahay waa kuma ninka maalmo aan bila gaadhayn kadib noqon doona madaxweynaha Soomaaliya halkani waa Dayax TV haddaadan batay barnaamijyadan oo taxana noqonaya ayaa ku bidhaamin doona halka loo socdo cidda awoodda hirdinka hanashada kursiga madaxweynaha Soomaaliya ku gacan sareysa ducaysiga dani doonista labada xasan damaca khayre aamusnaanta jooga hoose ku duulaysa ee farmaajo sharaxdayna Cabdishakuur waa kuma ninka shukaanta qaban doona haddii ay markii hore xaaladdu taagnay oo hebel waxa ku guuleystay hebel hadda waa la iskala yimi xaraaraddu heerkii ugu sarreysay ayay garaacaysaa hirdinka kala hororsiga kursiga tirsigiisu u sareeyo kuraasta xukunka dalka ayaa lagu loolamayaa doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo nabarka foosha la waliilisay weegag bilo tirsigoodu sanad isku bedelay hadda ayay soo dhawaatay waqtigii ragga tartamaya mid kamid ah la oran lahaa madaxweynaha ku guuleystay 4 sano ee soo socota hogaaminta dalka balse doorashada foosheedu raatay waa la sii saadaalin kari laayahay dawladda ay dhali doonto ta ay noqonayso hadda waxa la galay wareegyada ugu dambeeyay ee kambeynka oo ah kala isugu xoogay xeelad sheeganayo musharax kastaana waxa uu isticmaalayaa tamarta itaalka nin kasta waxay sababi doontaa in rag badan habaaska afka daraan ee haddaba yaa dari doona afka ciida awoodda lagu kala badanayaa waa xildhibaanada labada aqal iyaga hadda la kala hormarsanaya la kala ciriirsanaya nin walba tamartii ayay xaajadu maraysaa xalqadaheena dambe ayaynu ku kala xulaynaa kuwa loo awood sheegtay iyo kuwa awood sheegtay waxaynu mid walba iskugu geyn doonaa xisaabaha uu guusha u soo qortay